doorashooyinka wareegga dhexe Mareykanka oo 3 asbuuc ee la soo dhaafay ka socday meelo badan oo Mareykanka ayaa la soo afmeeray gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan ay ku nool yihiin Farxaan Jeete oo ah wiil Soomaaliyeed ayaa u tartamayay golaha deegaanka waxa uu tartan adag la galay musharax kale oo asagoo ah mid ku fadhiya kursiga Jeete u tartamayay laakiin tartan adag iyo isjiid badan kadib Jeete waa uu ku guuldareystay helida kursigaasi waxaana kursigiisa sii xagsaday musharaxii hore ugu fadhiyay Jeete waxa uu helay codadka ugu badnaa oo Soomaali ay hesho in ka badan 55,000 oo cod ayuu helay goobta ay kooxda ololaha Jeete ku sugayeen natiijada ayaa noqotay mid buux dhaaftay waxaana inta badan dadku muddada ay sugayeen muujinayeen rajo aad u sareysa laakiin waxa ay noqotay mid aan suurtagelin kooxda ololaha ayaa wacad ku martay inay mar kale isa soo adkeyn doonaan kuna soo noqon doonaan in kursigani ay riixdaan Jeete ayaa dhankiisa asaguna waxa uu mahadcelin ballaaran u muujiyay dadkii ka qayb qaatay ololahan kuwii dhaqaalaha ku bixiyay kuwii qabowga iyo qoraxda u taagnaa iyo waliba cid kasta oo gacan ka geysatay si guudna Soomaalida gobolka Ohio ayuu ugu mahadceliyay in si midaysan ay ugu soo baxeen gobolkan ayaa haatan u muuqda in Soomaalida iyo waliba dadyow badan oo dhawaan soo galay ay siyaasadda iminka ku biirayaan iyadoo gobolkan galista siyaasadiisu ay ahayd mid aad u adag laguna tilmaamo gobolada gaduudan oo loola jeedo xisbiga Republicanku in uusan jeclayn in siyaasadda ay ku soo biiraan dadyowga kale dadka Soomaaliyeed awoodda ay leeyihiin ayay muujinaysaa waa wake up call ayay u tahay marka fariin waa midaas tan labaadna waxa weeye runtii midnimada aanu muujinay ololahan wuxuu ahaa ololihii ugu dadaalka badnaa oo dadka ugu badan ee Soomaali ah inta leeg ay soo baxaan naftooda iyo maalkooda iyo dhaqaalahooda iyo maskaxdooda ay geliyeen ayuu ahaa marka runtii hadal badan oo kale hadda meesha ma yaalo waxaanu leenahay ummadda Soomaaliyeed hambalyo waad guuleysateen sida dhabta ah waayo tirada inta leeg oo Soomaali ah ma dhicin codkeeda in Ohio laga tiriyo meesha caawa aan soo gaarnay meel aan gadaal uga noqonayna maahan booskaana waxa ballan ah inaan ka harin ilaa Farxaan aan geeyno kuwa kalena waa u tartamayna annagoo dadka Soomaaliyeed ah yaa waxaan la tartarnay sidii abwaanku u sheegay xisbigii dimuqraadiga oo 240 sano jiray ayagii baa gariiray ayagii baan caawa waxaan u dhownahay inaan ka guuleysano waxaan u baahanahay marka midnimadeena iyo sidaan isugu tashanay inaan isugu tashano gacmaha isu haysano dhammaan dadka Soomaaliyeed campaign-kan uma kala harin ee degan Central Ohio qayb kasta ka qaataan kuwaan codka bixin karin dhaqaalaha ay bixiyeen kuwaan area-dan deganayn dadkay soo qaadahayeen kuwa waxaan la yiraahdo shaqeynaya shaqooyinkoodii bay ka soo baxeen campaign-kan wuxuu ahaa campaign-kii ugu xoog badnaa ee Soomaalida North America ay gasho ahaa waan uga mahadcelinaynaa qof kasta oo qayb ka ahaa waxaan rabaa inaan sheego Farxaan haddii ilaahay idmo ilaa booskaan aan geeyno kama harayno taas aan ugu ballan qaadaya kama harayno intaan iyo inta naga maqno Soomaalidana arrintaas u diyaar garoobaysaa waana wax noo bilowday lambarka aan rabno waa dhaafnay annaga qorshahanagu waa targetkanagu 45,000 cod inaan helo ilaa iyo 60,000 waa helaynaa sababtoo ah waa codadkeena absentiga ahaa 2 wiil 3 wiil ka bacda la xisaabin doonaa official baa laga dhigi doonaa ilaa 7,000 waaye therefore waxaan haysanaa ilaa 60,000 70,000 baan ku dhawaanaynaa waxaa naga go'an caawa aan ballan qaadaynaa ilaa Farxaan booska aan gaarsiino inaan ka hari doonin aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa soo noqonaynaa annagoo sidaan ka xoog badan insha Allah qofka marka la qiimeynayana waxaa la qiimeeyaa potentialka uu leeyahay 20 jir campaign-kan sameeyay first campaign-kiisii oo galo uu levelkan soo gaaray waa iska caddahay second campaign-kiisana meesha uu gaari doono yaan la niyad jabin aad iyo aad baa u mahadsantihiin campaign-kan wuxuu campaign-nada kale kaga duwaday midnimo Soomaali uma kala harin saakay waxaan maanta gurigeeda ka soo qaadnay gabar xal soo gashay baan inta soo qaadnay bay codaysa ma la kala harin
marka insha Allah yaan la isdhalinin yaa in wax naga halaabeen la dareemin guul baan joognaa assalaamu calaykum wa barakaatu waan sii guulaysan doorashadan farxaan hadduu foodo gabaraan dooranaynaa no more haddii farxaan aan saarno farxaan noo maarad waa saaraynaa hadda ka bacdi dharka waa u gaabsanaynaa haddii nala gaado mar damba nala gaadaayo runtaa fiicane tariibka haddii nala gaado tariibka dambe shaqooyinka xataa bilaan fasax ka qaadanaynaa macnaha waa is abaabuleynaa laakiin ani maanta waxaa gabdhaha Soomaaliya inay qadiyad leeyihiin ogahay Soomaaliya xataa madaxweyne aan ka noqonnaa u baahana because gabdhaha ayaga waxaayaan runtaa la isku sheegay nimanka jaakada soo gashanay galabtii markay tahay waa ka iyagoo jaaqama imaanayaan saa iska siinayaan laakiin wixii saaka ordaya dumar ay ahaayeen oo dhacaayo oo ku faayay mid ilmo ka tagto wallaahi maxaa runtaa la isku sheegaa wixii saaka dumar la arkay haddaan kaniisa wisiga dumar isiga dumar هل ويل وداده ما شاء الله شيقي او ويلك انت كهلا ما كان مقعيس اسغن لا شقينا ما شاء الله عامل كسارك يا عبد آدم رجو هذاك بعد انا حلك نو دورتا انا كان دورتا انا كواني دورنينا انا كان دورتا نسعر مركان انا كان الا سبان جوجنا marka walaalayaalow ما شاء الله انا رجديد ان ريد انا ku rajeenay insha Allah rajo fiican aan qabnaa wadaadadii way shaqeynaa qaar wadaadaba soo arkay waliga wadaad shaqeynaa ma arkin baani marka ninkan waa iska duceysay hadduu xataa dhaco waa nin iska duceysan marka eel qaarna uu ka imaado marka waxa waaye gabdhaha isdhiirageliya farxaan markuu golaysto mool iyo maad lacagaha waa isku darsanaynaa ayuu tooyin aan galeynaa gabadhaan saaraynaa gabadha noogu aqoonyeesan aan dooranaynaa waa saaraynaa ayuu taagala 10 kun kastaba aan 10 keen keena ma kastaba keeda hakeen gonna be an uphill battle. But what I'll say is, and it's kind of how I've lived my life and what I believe in, anytime you're standing up for really what you believe in, you're always winning though. And I think that's certainly what we did in this race. And I think this is certainly just the beginning. What I've seen from this community, I'm inspired, I'm moved. I've never seen anything like it before, and I'm honored to call all of you friends. Farhan, my brother, you couldn't have run a better race. We had a lot of things against us. We had the issues on the ballot this time. I know that certainly hamstrung our efforts a little bit, but you work so hard. This community works so hard. You should all be incredibly proud of one another. And I look forward to accomplishing very, very great things all together moving on into the future. So thank you all so much. I'm honored to call you all friends. Appreciate it. Alhamdulillah, al-shukrullah. Still waa faraxsanahay. Mar walbana waxaan rajeynayaa inuu soo baxo farxaan walaalkay. Mar walba iyo waqti kastan waa garab taaganahay. Haddii maanta ay noqoto bari ay noqonaysaa 5 leen maanta soo kacay waxaa laga yaabaa 3 inaan soo kaco marka labaad. Insha Allah ta'ala bi'ihnillahi al-kareem guusheena waa gaareynaa. Farxaano waxaan ku leeyahay maadaama luqadda leegu ciriiri. nin adkaystay iimaan lahaadee arrinkiisa eebba u yeelaaye aqli yeeshta waani akhbaara ha iloobine waa idin salaamaya qof kasta oo barnaamijkan ka soo qayb qaatay walaalaha codeeyay walaalaha dagaalkii maanta galay walaalaha bishaan soo shaqeynayay walaalaha lacagta soo aruuriyay walaalaha cuntada keenayay walaalaha guryaha garaacay dhammaantiin qaralaha idin siiyo guul fiican baan gaarnay saacad ka fiirinaysaan maanta oo kaliya codadka aan keenay waxay simanaan 26,000 sida la socotaan haddii 26,000 oo wali ay socoto 27,000 Soomaalida sii Soomaalida hor u sii codayeen macnaheedu waxa waa 26,000 oo ajnabi noo codaysay waa dagaalkii saakay subaxii 6 aan galnay oo magaalada Afrika aan ka dagaalameynay marka waxba yaan la jabin bangalna meesha ka dagaalameynay waxay meel aad u faraweyn u ballaaran marka guul baan gaarnay qof kasta oo waqtigiisa soo galay waa maasan yahay guushuna way soo socotaa anigu wali isma dhiinba waxa laga yaabaa inay wax isbedelaan doorashooyinka waxa hal cod la iskaga raaya mugta marka wixii dhicdaa way dhiceen insha Allah walaalo badan ma jooga hadli doona waxa idin leeyahay waa didaasheen madaxweynaha ma soo koobi karno qof kaste oo maanta barnaamijkan hal dadku ma sheegi karno laga shaqooyinka la qabanay aad bay u fara badnay walaalaha gudaha garaacsarooda ku sheegay oo shaqada qabtay walaalihii maanta wareegayay dhalinyaradii saaka guryaha laga soo kiciyay high schoolada aadayay hooyooyinkii
walaali waayeelkii la soo kiciyey dhammaantiin boqolkiiba boqol ma santiidin maygana ku dhada marba ku hayo uguma soo tagalin khudbad oo saan uguma tagalnay khudbada waa idii sareed bacaaw laakiinse waa caadi waa guulaysanay ma santiidin dhammaantiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا مركورة الحمد لله رب العالمين. حالة كستوان أولنا ما نهين هدنا الديوان الحمد لله. absolutely مركا وقولوي. هرمر وين دد وحاجة مركا ودي هوري أن فيلين إن أي سومالي تسوتي ماتو أي تشنكرتو أي جوان جاري كرتو أي هالمال اسكو دراري كرتو. نسيب وناك. كامبين كانوا وحب موجي ولا تشيك الصوماليات وانا هرمر آد قالي واه وحيسو كاني صومالي ودن وحيسو كاني ضد انا ولقد ودا شقين با ودا شقيي وانا الحمد لله وانا قلت هاسكل يدا قول ويلا waxaan kaga markhaati furayaa dadkii ajnabiga ahaa oo lagu namaansanaa in laftigoodu ay xoogaa ay cajab ay muujiyeen oo heer hadda ay noo soo kala dhuumanayaan dadka musharaxiinta kale waaweyn oo xubnaha waaweyn ama heer federaal musharax u yihiin ama governor musharax u ahaadaan laakiin waxay rajaynayaan in ay Soomaalida ay si u soo xaluushaan waxaana sababay midnimadan waana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan barnaamij waxaa jira aan dhawaan qolada maamulka hadda magaalada haysata ay damceen inay shirna la yeeshaan oo kaliya dhahan maxaad Soomaalidu hal meel ugu dilaanteen marka waxaan ku niri markii electionka dhamaado ka bacdi aan sinimaadno waxaana tusnay quwadda Soomaalidu iyo isku qadiyad inaan nahay ana alxamdulillah taas guusheenu marka dhibcooyin tira badan oo taaban karay campaign-ka noo dhashay campaign-kana waxay arkeen waa urdan way horta siyaasadda dhinacan haddaan nahay reer Ohio waana tinka hadda inay sida cabdi aad u sheegay ay gilgil badan ay dareemeen oo laftigoodu xataa ay canaan weyn oo gobolo badan saylka yimaadeen oo dad ka yimid dhinaca nationalka oo kale halka inay miyaadeen kaliya inay istaari gareeyaan sida Soomaalidu iyo heerka isku daba jiraan waayo waxay arkeen guest to guest markii early voting center ay tahay oo kale markii fanaanadaheenu meel kasta yaaleen markii billboards ay way filan waayeen heerka aan gaarnay waana alxamdulillah marna maana qasaan inaan horumar sameeyno maana Soomaaliyeed تروى قول وانا بلو waxaan rajaynaynaa in booskan ma ahan sideed boos oo kale ama heer ha noqoto gobol ama ha noqoto magaalo ama degmo insha Allah dad badan baa dhiirigelinay insha Allah dad badan baa waxaan rajaynaynaa hamigaas inuu u rumoobo waana tusi doona hameen kale oo insha Allah conversation kan mid kale yahay insha Allah wuu soo socon waana guulaysanay oo kulligood waxaan rabaa si gaar ah hooyooyinka ciyaalkoodii intay yimaadaan dhaxanta ay gaariga daaran hiidka uga tagaan si u socdayaan hooyooyinka intay ciyaalkooda dadka lagu soo tagay dadka soo cananaya hooyooyinka wheelchair ku jira oo ciyaalkooda tirada u galay hebel mas'uudiye ku jira waa aad iyo aad baa si kaliya Allah baan ku mahad celinayaa campaign-kan soo horin kugu sheegayna dhimal guush waa wada leenahay laakiin waxaan inii sheegayaa wax farxan inay saahayna wax Soomaaliyeed ay ahayd ana alxamdulillah haddeena dadkeen waan arkeen anaguna heer fiican baan gaarnay rajadeenu ay cirkay maraysaa markastana xaaladeenu waa alxamdulillah waana ku mahadsantahay waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan isku dibirno xaflad gaar ah oo aan si gaar ugu mahad celinayno taliyayaashii campaign-kan dad waxaa jira lafdhabar u ahaa qof kasta Soomaali lafdhabar buu ahaa qof kasta waana rajaynaynaa in ay Soomaalidu intaan iskaasi timaado ay isku duwanaato isku wada tashato go'aanadeedana ay u taalo halkan si bayskan xoog u yeesho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Todos que te
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عبد الرحمن محمود ورسمة الآمن عبد الرحمن الآمن. وعن ربعنا نكاه الله وحير كان بينكي مانتا صاحبكي مستر تشيتي وحيا هاي مالنا هذه يقوين أنيقا حالي توانيقا وشغالي والله يصوعي وحالي يقولي إذا ما بدن بعلوب باهي هاي نولش إذا وامركي يقول الرئيسي يعني كنيسة قالوا وكشغيان وحتى عد بحنتها وعن ولقي الله يدك كنيسة هالك تجمعين وامركي يقول الرئيسي بهاي وحن نتجينا وحيا هاي taageero weyn inaan u muujiyo saaxiibkay Mr. Chite oo aan filayo insha Allah bismillaahi kariim inuu soo bixi doono mustaqbalka hadii la haydmo waxyaalaha aan arkay cajiibka waxa kamid ah dad 60,000 gaadhay oo reer Ohio waa markii ugu horeysay oo aan arko oo codkoodii bixiyay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dadka inta leeg inay u soo bixeen saaxiibkay Chite waxaan filayaa inaynu guul gaadhnay waxaan filayaa next time-ka hadii la hayd mararka dambe in uu isaga iyo cidii kale aynu wadanaaba ay soo bixi doonto waxaan ku faraxsanahay Soomaalida oo ahaa inay noqotay hadeerto Soomaali isku duuban inaynu power lahay in layna tixgelin doono in aad iyo aad laynoo qiimeyn doono marka la arko codkeena iyo saynu isugu duubanahay waxaan kaloo qiyaasayaa in qulubtii Soomaalida Ilaahay isu soo jeediyay inay dad walaalaa noqotay waxaan qiyaasayaa dalkeennii hooyana inay saas oo kale noqon doonaan insha Allah midnimadaasi ay meel kasta ka dhici doonto hadii la haydmo waxaan halkan ka salaamayaa saaxiibkay Chite waxaan u rajaynayaa guul waxaan u rajaynayaa hadii la haydmo inuu saniyad jabin waxaan u rajaynayaa inuu insha Allah bismillaahi kariim mustaqbalka soo bixi doono isaga iyo dhalinyarada kale ee han kale ee raba inay siyaasadda Mareykanka ku biiraanba dadka Soomaaliyeed maanta waxay muujiyeen cudud lagaga haybeysanayo oo maanta codkooda ay waxay rabaan ku goosan karaan aad iyo aad baan u hambalyeynaa soo dhawaadaan leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waa Shucayb kuna Columbus Ohio waxaan ka mid ahaa dhalinyarada u codeynaysa Farxaan Chite marka waxaan rajaynaynaa inaan soo laabano insha Allah waliba dee waxaan hadda lambarka aniga aan filaynay lambarka weyn ayaanu helay Soomaaliduna way soo wada baxday gabdhihiina aad u dadaalayeen wallahi xaalad aan galnay xaalad soo koobi kara ma ahayn ma sha Allah biidnillah hadu waxaan la mid tahay anaga guuleysanay laakiin maana niyad jabin waa soo soconnaa mar labaadaan imaanayna Soomaalida inay isku duuban tahay aragnay biidnillah we'll be there soo laabanayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan xagan ka salaamayaa Ohio Somali TV oo noo daadihinaya barnaamijkan aad iyo aad ugu qurux badan maanta caawa xagan waxaan u nimid doorashadii Farxaan gabagabadeedii natiijadeedii maanan helin laakiin maanta waxaan dadka ku leeyahay doorashadan hadda waa bilow waxaan nahay dad hadda ku soo biiray siyaasadda waliba ma taqaanaa xisbigan oo Republicanka Farxaan maanta ma guuldareysan wuxuu helay almost 50,000 oo cod 60,000 oo cod uu helay taasoo Soomaalida ay ka tahay maybe 20,000 40,000 taajanabi oo la haday mucdamkooda maanta la helay oo ah 12 saac marka waxaan leeyahay yaana niyad jabin guushu way dhowdahay waa anagoo badan dadaalka Soomaalida waxa la gaar waqtiga ka tashan lahaayeen ayahooda caruurtooda mustaqbalkooda waxbarashadooda wadan waxa joognaa siyaasadda ay ka tahay aad iyo aad muhiim in la galo doorashada ay tahay muhiim qofkii wax bartay wax garanaya siyaasadda wax garanaya waxa muhiim ku ah waxa muhiim ah inuu ka qayb galo doorashooyinka uu tartamo Farxaan wuxuu noo yahay hormuud maanta wuxuu na tusay in la tartami karo marka waxaan rabaa qof kasta inuu ku dhiirado uu soo tartamo because that's the only way أنا عرورتنا وحقوق قبل كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأني إذل محمود عبد الشقري. I just want to say a win is a win, a lose is a lose. At the end of the day, Farhan put in too much work and he tried, but inshallah next time inshallah. Assalamu alaikum. Magaiga Sadaqa Abdiqani Shaqali. I wanted to say Farhan Chite's campaign went beautiful. For a first-time runner, getting 50,000 votes in the city of Columbus is amazing. So I don't think he lost. I think a win is a win. He built a community. He built a strong campaign
campaign team. He made many connections. So inshallah, in the future, he can use those connections and get somewhere even higher. Assalamu alaikum. My name is Fatima Ali, and I would just like to say Farhan's campaign was beautiful. And people win, and sometimes you lose, and sometimes you win. And all that matters is how you take it. And Farhan is always going to come back stronger. My name is Khalid Farhan Jete. I just want to say I'm proud of my dad. Unfortunately, we lost, but we can do better. We can do better things, inshallah. iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose mid ka dhaxeeya iyo 2 kuwa sare ah waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka. ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn. hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. barnaamijyadeena robotisku waa hal abuuro ka dheeraada fasalada. deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare. waxaan helay dhibcaha kollejka ka hor inta aanan aadin kollejka. runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada kollejka adigoo dhiganaya dugsiga sare. waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada kollejka. waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.